24 saac ee ugu dambeeyay waxa halkan oo aynu ku sugannahay oo ah duleedka bari ee magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan deegaanna ay ka mid tahay Mirdugul howlgal ballaaran ka waday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 15aad ee qaybta 12aad howlgalkan waxa ay ciidamadu ku baacsanayeen koox ka tirsan al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay halkan ku jiray kuwaasi oo dadka deegaanka ku hayay cadaadis xoog leh waxaana howlgalkan oo bilowday shalay subaxii hore ciidamadu ay ku beegsadeen fariisimo kooxdu ay ku lahayd deegaanadan oo ay cagta mariyeen waxa halkan soo booqday xubno ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gudoomiyaha guddiga amniga ee baarlamaanka iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda ee baarlamaanka kuwaasi oo halkan u yimid in ay dhiirigeliyaan ciidanka qalabka sida ee halkan ka wada howlgallada kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay waday dhaqaaqa si isku mid ah deegaanada Galmudug guddigu waxa uu halkan soo gaarsiiyay xoolo nool oo ugu talagalay in ciidamada howlgallada ku jira ay saad ka dhigtaan gudoomiyaha guddiga amniga ee baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug Xildhibaan Xasan Xirsi Xaashi oo ugu horeyn halkan ka hadlay waxa uu u mahad celiyay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee halkan howlgallada ka wada waxaana uu ku wareejiyay hadiyad baarlamaanku ugu talagalay ciidanka halkan jooga ee howlgalka ku jira runtii waxaan ku faraxsanahay howlgallada aad ka heydin deegaanada Galmudug waxaan ku faraxsanahay cadawga dhibaatada ku haya Galmudug si aad u baacsaydin waxaan galabtan kugu imaanay inaan meeshan ku dhiirigelino inaan tusno inaan garab taaganahay waxaan inii wadnay oo in kugu talagalna waa dhiirigelin waxa waaye 3 qodob aan kugu talagalna galabta inaan ku dhiirigelino midda koobaad waxa waaye meel kasta aad joogtiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12aad guutada 15aad oo ay Galmudug ka joogaan inaan la garab taaganahay heel iyo hoo intaba waxaan kaloo in la garab taaganahay oo in ku dhiirigeliyayna inaan xabadda in la galayno garabkiinana aan taaganahay dhaawac iyo dhimashada aan la qaybsayno waxaan kaloo rabnaa inaan la wadaagno mushaarkanaga Allah ka dhigay inaan rasaasta in ku gadeen hadii Ilaahay idmo wax walba aad diyaar aan kula nahay waxaan ka rabnaa hadii Ilaahay idmo sida aad hawsha fiican aad u wadiin inaad u sii dardar gelidin sidoo kale waxa halkan isna ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Xildhibaan Mahad Kilic Warsame oo ciidanka halkan jooga ku dhiirigeliyay in ay hawsha ay hayaan si laba jibaaraan waxa uu ballan qaaday in baarlamaanku uu sii wadi doono dadaalka lagu garab istaagayo ciidamada qalabka sida oo uu sheegay in uu yahay mid wax weyn ka taraya howlaha baarlamaanku uu hayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee dhawaan lagu soo wajahan run ahaantii waa ku farxsanahay maadaama dalku doorasho aadahayo oo ay doorasho soo dhowdahay in caasimadda iyo agagaarkeeda iyo Galmudug oo dhan la xasiliyo aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa waa si gaar ah kaga mahad celinaynaa ciidamadan waxay ahaayeen ciidamadii aaday deegaanka Shabeelo ee gobolka Mudug dagaaladii ka dhacay shalay galabna markii saas u yimaadeen deegaanada xasilin lagu bilaabeen intaas aan galabta u soo gaarnay waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa guddiga amniga oo riboodyo joogto ah baarlamaanka keenayay ugu dambeyn waxa halkan ka hadlay taliye ku-xigeenka guutada 15aad ee qaybta 12aad Gaashaanle Xirsi Cali Quuri waxaana uu faahfaahin ka bixiyay howlgalladii ciidamadu ay ka sameeyeen deegaanadan bari ee gobolka Galgaduud aadan uga mahad celinaynaa xildhibaanada sharafta leh runtii waxaan dareemayaa gaar ahaan guddiga amniga ee baarlamaanka Galmudug sida dhiiranaanta leh iyo firfircoonida uu mar walba ula socdo xaaladda ciidamada ama ay noo garab taagan yihiin xildhibaanadu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay ka qaadahayaan baraarug iyo dhiirigelin waayo askarigu hadii madaxdiisu gadaal ka taagan tahay oo ay riixayso wuxuu u helayaa fursad inuu cadawga iska riixo inuu dhiiranaan u helo waxaan ka rajaynaynaa baarlamaanka gudiyadiisa qaybihiisa kala duwan xukuumadda Galmudug ilaa heer madaxweyne iyo heer federaalba inay soo garab istaagaan ciidanka annagana waxaan insha Allah rajaynaynaa inaan baacsiga sii wadno shalay subax abaara 10kii barqanimo ayaan goobahan soo gaarnay waxaana nagu kalifay inaan aagan howlgal aan ka sameeyno nabadiidkii oo dhumaalaysi ku jooga dadka deegaankana isku dayay inay khalqalgelin ay ku sameeyaan ilaa iyo xalay iyo shala iyo saaka galinkii hore waxaan howlgal wadnay deegaanadan oo inaan ku xasilino insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan mardhow aan soo bandhigno guulo fiican oo aan ka gaarnay howlgalkan waana mahadsan yihiin xildhibaanadu waana sugaynaa shacabka iyo xildhibaanada intuba inay
garab istaag ay sameeyaan oo ay aad u soo garab istaagaan weliba shacabka reer galmudug waxaan aad ugu baaqahayaa khawaarijta al-shabaab waxaa iska dulqaadi jira shacabkay ahaayeen in shacabku ay dhiiranaan muujiyaan sida ka dhacday shabeelle oo kale oo runtii guul la taaban karo ay shacabku ka soo hooyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay garab iyo ay siiyeen gurmad intaba saraakiisha ciidamada qalabka sida ee deegaanadan ku sugan oo halkan kula hadlay sidoo kale warbaahinta waxa ay sheegeen in ay si laba jibaari doonaan howlgallada halkan ka socda oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada qaybta 12aad gaar ahaan guutada 15aad waxa howlgalladan intii ay socdeen ku diirsadeen dadka ku nool deegaanadan miyiga ah oo laga qaaday culayskii ay ku hayeen maleeshiyaadka aagan ku sugan